hay'adda wacyigelinta iyo horumarka bulshada ee magaceeda loo soo gaabiyo NASDA ayaa maanta waxa ay deeq raashin ah u qaybisay dadka barakacayaasha ee ku dhaqan degmada Cabdicasiis ee magaalada Muqdisho. deeqdan ay maanta hay'adda wacyigelinta iyo horumarka bulshada ee magaceeda loo soo gaabiyo NASDA u qaybisay 100 qoys oo barakacayaal ah ayaa waxa ay ka koobnayd bariis buuco ku salaysan iyo marada kaneecada celisa. barakacayaashan ay maanta hay'adda NASDA deeqdan u qaybisay ayaa waxa ay ka soo barakaceen qaar ka mid ah gobolada dhaca koonfurta Soomaaliya kuwaas oo ay abaaro iyo dagaalo ku dhufteen sanadihii u dambeeyay waxayna ilaa hadda ay ku sugan yihiin barakacayaashan degmada Cabdilcasiis ee magaalada Muqdisho. badi dadka maanta la gaarsiiyay deeqdan oo CBA TV la hadlay ayaa sheegay inay ka soo barakaceen abaaraha iyo dagaalada dhuftay deegaanadooda iyagoona u mahad celiyay hay'adda wacyigelinta iyo horumarka bulshada ee magaceeda loo yaqaan NASDA oo maanta deeqdan gaarsiisay. maanta xalisi qoodin bariis iyo qulaarsi rijaalisi ee hadda ma hasantahay oo qoodinta nasiisi hay'adda NASDA raashin siyeer wax bayna si ilaahay ma hadda iska leeyahay ma oo mahad celiyayna marka adoon soo barkaanay hay'adda NASDA waxayna si bariis siyeer ay nasiyaan ala oo mahad celiyayna wixii kale ilaahay ku sugayna ilaahana uu soo qaadadan marka waxa soo dagaal iyo isturb iyo khayl iyo baaho oo soo roorni bulburta soo qaada abar iyo awad iqa oo ku dhanka kale gudoomiyaha NASDA Cabdiraxmaan Maaxi oo goobta kula hadlay CBA TV ayaa sheegay inay deeqdan gudoonsiiyeen in ka badan 300 oo qoys isla markaana ay sii wadi doonaan howlaha gurmadka. bismillaahir rahmaanir rahiim maanta hay'adda NASDA waxay deeq raashin iyo isugu jira markanacooyin ay soo gaarsiisay barakacayaal ku sugan degmada Cabdilcasiis. hay'adda tiradii maanta ay dadka ugu talagashay way ka bateen ilaa iyo waxa la gaarsiiyay maanta tiro gaareeyo 300 oo qoys. dadka waxay isugu jiraan dadkii ka soo barakacay dagaaladii hore iyo barakacayaal hore waxayna ku sugan yihiin degmada Cabdilcasiis. wayna go'an tahay hay'adda NASDA waxay u taagan tahay mar waliba inay caawiso bulshada. Maxamed Ibrahim Bulbul codka bariga Afrika Muqdisho.